ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تيجي فيصل على وراء أبتيا نكاسا مواطنا نكاسا هو نهين نكاسا مسند كرر بعوص علينا هو نكون ما جرنو ما شاء الله وحين ناقو برعو ما شاء الله gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faisal Cali Waraabe oo maalmihii u dambeeyay socdaal shaqo ku joogay magaalada Burco ayaa maanta waxa uu booqasho ku tagay suuqa weyn ee magaalada Burco waxaana halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay bulshada ku ganacsata suuqa sidoo kale gudoomiyaha ayaa socod luqa ku maray bartamaha magaalada Burco ادي ورهم الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله انتو ليلهاي الهي يديك انا مهرد هيدين بركه الهي يدين بركه خديجه هويدي مسلمك خديجه رضي الله عنه دعم الشربه الهي يديك هيدين بركه امين امين الهي كرسيك نو قاسم امين امين وانك توطا نو خداي ciidanka iskarab taagay فيصل على ورابي ونسو dhaweeyay شلتنا دون وجي شلتنا ciidanka balaga dhawaad والله هذا داوود كي اوغنا ونوجي كي اوغنا ودغيس ما شاء الله الحمد لله إلهي خير نسيه إلهي يدين بركيه إلهي يدين بركيه ويدين دعيني له ما شاء الله ما شاء الله حيه آمين ما شاء الله إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مرحبا وكبره سيلايات بدأ نور نقص سياسي كسومال لانها آمين 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 نور نقص سياسي كسومال لانها آمين 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 ما شاء الله ما شاء الله تطلع فيصل هنا السلام عليكم عليك السلام الله ومدحوينه مستقبل ما شاء الله ما شاء الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله أبتيجي فيصل على وراء أبتيا بس أبتي نمرو تيلا فريد أبتي السلام عليكم عليكم السلام بارك الله فيك والله يدين سقيا سعدا ما شاء الله والله يدين سلام والله إلهي دلكيني ودلكيني سودا وهذا ما شاء الله ما شاء الله برواقية بيضاء السلام عليكم إلهي الحمد لله الحمد لله ويدي بركين ويدي دعيني ما شاء الله إن إلهي يدي بركيه إن شاء الله هاي دلك ودعية دلك ودعية يا دلك يسكت حلا ولا عليه دلك سيلايا سو صاربان وموسى سو صاربان ما شاء الله قلنا waxaan ku qaadayna adiga ku saar السلام عليكم tawa no ballan السلام عليكم عليك السلام horta wax waan malay kaga baraya الحمد لله kowda waxaan idhi Soomaaliland Faisal baa cawriyay runta in kaasay waxay inta oo sanadood buu daba socday way dooran waayeen sanadka maanta nin muwaadin aad u bal ku hayay ilaahay waa igu ogi ilaahay waa ka il baxayo in Muuse soo saaray ilaahay inaad artay horta wallahi way ka dhab Soomaaliland darsan soo kayna kala diray وانا حرمك تجي صوت موسى قلبك يصير هي بدل ما
فيصل هذا الله خير بان كاغا بريا wax wanaagsan Allah kaaga bariya qofka anigu Soomaaliland dhiigayga saacadka ka igu jira Soomaaliland qofki Soomaaliland doon baan jecel oo Ilaahay igu khayr baan ku rajaynay ما شاء الله sanadka madaxaad noo saaran ما شاء الله ما شاء الله shaqayna booba mooyaane madaxaad u saaran إلى نبوي ما هرينا ستوم اسكتاين laakiin sanadka madaxweynihii mustaqbalka صندوقنا هرينا اسكتاين هرينا اسكتاين ninkaasaan muwaadina ninkaasaan kuwan ahayn ninkaasaynu sanadka reer Burco soo saaraynaa kuwan kuma jirno waxaynu nahay inagu Burco waxaynu nahay gobolkii lagaga dhawaaqay xareedii Somaliland baati dhinaca kale gudoomiyuhu waxa uu booqday cusbitaalka weyn ee magaalada Burco waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay agaasimaha cusbitaalka Dr. Cabdiraxmaan gudoomiyaha ayaa booqday qaybaha kala duwan ee cusbitaalku ka kooban yahay waxaana intaasi kadib gudoomiyuhu warbaahinta kula hadlay xafiiska agaasimaha guud ee cusbitaalka bismillaahir rahmaanir rahiim دكتور aad iyo aad baad mahadsan tahay dhakhtarku wuxuu soo mariyay qaybihii cusbitaalku oo ka koobnaa aad iyo aad baan ugu qushuucay laana 2021 bay ugu dambeysay cusbitaalkan booqashadiisa maanta ay ugu xigtay waxay ku soo biiray waxaan hore oo jiray ilaakiin kaliya safaynayay ay siiyuu baa ku soo biirtay iskaankii ayaa ku soo biiray labada meelood dad ajnabi ka shaqeeya wadamada jaarka nahay oo dhaqaatiirayna jooga marka inaga waxaynu rogayoon qof qarad kale loo intuu microphone qaato meel aanu xaaladeeda ogeyn ka warama oo inaga nooga waramaya waraan shaqaan dadkani hadaa la ilaa Faysal geesa ka soo baxay way rumaysanayaan cusbitaalkani de saddex gobol ayuu ahaa center maantana heerku wuxuu ku socdaa inuu waajibaadka saddex gobolba waxay qabsan karaan labada gobol kalaba inuu qabto oo Hargeysa ka maarmo ayaa inoo muuqata inoo jecel insha Allah taala in lixda gobolba lix cusbitaal oo shacabku leeyahay publica oo tayo leh inuu ka sameeyno mustaqbalka insha Allah taala maanta aad iyo aad baan idin boorinayaa dhalinyarada ka hawlgasha unitskan soo marnoo dhan ilaa laabkii dhalinyaro dalka wax ku baratay oo doctora oo experience leh ayaa ka shaqeynaya aad iyo aad baan idin boorinayaa oo yahay Cabdiraxmaan gudoomiye uu yahay leader uu yahay insha Allah taala waa idin guuleysan doonaa dadkeena haloo naxariisto dadkeena maanta waa jilicsan yihiin dhaqaale ahaan haloo naxariisto ilaahay u naxariista aad iyo aad doctor u mahadsantiin agaasimaha cusbitaalka Dr. Cabdiraxmaan Axmed ayaa halkaasi isna kelmado ka jeediyay gudoomiye Faysal waxaan leenahay ku soo dhawow mar labaad cusbitaalka guud ee magaalada Burco bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Dr. Warfaa agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Burco waxaan ku leenahay gudoomiye Faysal ku soo dhawow magaalada Burco iyo cusbitaalka guud ee magaalada Burco aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay booqashadaas agaabana nagu soo martay maadaama cusbitaalku yahay meelaha loogu adeego dadka aad ka waliita qof xanuunsanaya qof waliba dadka danyartay xanuunsanaya loogu adeego in dadkaana bulshada lala arko waa arrin aad u muhiim ah oo kugu bogaadinaynaa in jasaakallah waan ku leenahay de kulay indhahaagana cusbitaalka waa soo marto waad aragtay dadku sidoo dadka ugu shaqeynayo qaybaha kala duwan uu leeyahay indhahaagaad ku soo aragtay waxaana fiican sidaba sidaas gudoomiye Faysal marka wax la dhaliilaya ama wax la sheegay horta qofku inuu arko gudoomiye cusbitaalka adiga maanta indhaha ku soo arkay sidoo shaqeynaya iyo qalabka yaala iyo heerka uu marayo marka loo eego hospital dawladeed oo mudqana public hospital marka loo eego iyo halkaynu joogno adiga arkaya waana cusbitaalka labaad ee ugu weyn wadanka marka Hargeysa laga yimaado intaas oo population oo shaqeynaya bulshadeena dhibaatooyinkaas waxa ka mid ah qof aanan warba u haynin oo ama Hargeysa jooga ama dibadda jooga baa wuxuu isku dayaa inuu wax ka sheego
meesha dantiya looga shaqeynay hospitaalka qofkaas muxuu ka faa'iidayaa hospitaalka wixii loo shaqeynay dadkii loo shaqeynay waa kuwa inay dhex jooga indhihiisu qofku soo arkaa qofkii wax tabanaya waan ku soo dhaweynaa qof kasti oo hospitaalka inuu ogaado xaaladiisa raba sida gudoomiye Faysal indhihiisa ku soo arka waan ku soo dhaweynaynaa hospitaalku waa hospitaal publica dadkoo dhan buu shaqeeyaa danyartu adeegaa waxaan rajaynayaa in la garab istaago horumar fiican hospitaalku sameeynaya dhalinyarta shaqaaluhu dhamaantood way dadaalayaan marka gudoomiye aad iyo aad baad u mahadsantahay insha Allah mar labaadna waxaan rajaynayaa mar saddexaad baadna soo booqan doonto anagii horumar fiican hospitaalku inta ka badan sii sameeyay aad baad u mahadsan